ugaasana halkan marti kumani gogoshaan gogol saargan waysanaa waan idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha leh gogoshaan quruxda badan sida aad noo sharafteen dhammaan waxaan ku hadlayaa afka odayaasha halkan fadhiya iyo ugaasyada halkan fadhiya galmudug inta beelood ay ka kooban yihiin kama qabna gogoshaad noo dhigtaan wax saluug ah wax ceebaala male howlaha inteeda kale waa ay noo dambeeyaan waa isugu tegi doonaa laakiin tan waxaan u malaynayaa sargeena koobaad tahay ujeedada gogoshaad dhigteenna waxay ahayd inaad farxadiina iyo deegaankiina iyo dadkiina iyo dalkiina adinkoo goobjoog u wada ah ayadoo dhuusamarada la wada degan yahay inaad u muujisaan wanaagga aad noo qabtaan annaguna waxaanu diyaar u nahay inaan si qalbisamo ah oo caloolfayoobi ah aanu kaga qayb galna shirkan ee guddiga noo cilaamiyeen ee guddiga dib u heshiisiinta ay noogu baaqeen inaan nimaado galmudug oo halkaas aan kaalimadii aan ku lahayn ee odayaasha ama ugaasida ay ku lahaayeen ay ka muujiyaan iyo waxgaradkooda kale halkan anagu maanta aan joognaa waa dhuusamareeb magaalo madaxdii oo galmudug wax cilada ee hadda halkan ka muuqda aan isleenahay waxba idin baajinayo hadda ima muuqdaan dardaarankan bixinayo waa hal dardaar fursaddu waa mar baa la yiri laba maaha anoo ayahna ka tashan haddaanan ayahna ka tashan cid saxan dahab wax noogu keenaysa ee wax noo dhisaysaa ma jirto isfaham iyo isu sabar iyo cid walba hawsha hortaalla oo si iimaan sameeyo ku qabato ayaa wax noogu qabsoomi karaan waxaan leenahay beesha halkan gogosha noo dhigtay reer dhuusamareeb ugaasku uu hogaaminayo cayr walaalayaal waa dhownahay waana ku faraxsannahay gogoshaad noo dhigteen horaanu shaqadeenna u gelina haddii alla wadda la ogolaado dareenkaas horaanu u qabnay inaad si wanaagsan noo soo dhaweyseen ilaa yaarboor ilaa meel walbaad nagu soo dhaweyseen gogoshaanna waa tii dhowr iyo maarata muxuu ahay saddexaad afaraad oo noo dhigtaan waa ku faraxsannahay waxaan leeyahay soo dhowaada dhuusamareeb intiinaan qolo aan guri ku lahayn ama aan deegaan ku lahayn idinka mid maaha waxaan idinku soo dhowaynaynaa oo keliya meesha markii la yidhi deegaanka waana la wada leeyahay waana la isugu yimid waana la wada dhisanayaa maamulkiina waa lagu yagleelayaa markii la isugu yimid waxay noqotay meesha magaca gogoshaan dhigay oo beesha cayr ayaa la yidhi gobolka ayaga ugu badan dadka degan hadda dadkii deegaanka ahaa oo kulligood wada lahaa oo ka dhaxayday inay maanta halkaan isku wada arkaan isugu yimaadaan isku salaamaan isku marxabeeyaan waayo guryay kala deganayeen isma guryo aqoon isma deegaan aqoon laakiin warka markii la isugu yimid nin walba ninkoo yiqiin iyo gabar walba gabadhay tukinay salaanta ku booqa sida daraaddeed waxaan leeyahay waa isbarasho iyo ismarxabayn iyo soo dhoweyn intaba waxaan leeyahay idinma dhuusamareeb waa magaaladiinnii dowladda la dhisa waa dowladdiinnii maamulka imanaya waa kii waxaad adinku samaysataan iyo waxaad qabsataan ayuunbaa wax idiin noqonaya haddii marka inaan wax dhisanno oo wax qabsanno oo aanu noqonno dad jira ilaahayna waafajiyo haddee waa mahadinaynaa ayadaana rajaynaa in ilaahay nagu guuleeyo kusoo dhowaada waa deegaankiinnii waa guryihiinnii waa taladiinnii waa fadhigiinnii waa mataqaanaa abuurkiinnii dowladnimo ku soo dhowaada waxaan rabaa 3 qodob oo gaagaaban inaan halka uga hadlo anoo ku hadlaya magaca guddiga midda koowaad waa arrinta mahadnaqa oo aan isleenahay xafladdaanu waxay huban tahay is-araggii koowaad oo ergooyinkii dadkii deegaanka halkaan ugu nimid iyo guddigii qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug waa markii ugu horreysay oo si buuxda ay isugu yimaadaan isu soo dhoweeyaan qada sharaf u wada samaystaan aan isla hadallo markii koowaad bay noqonaysaa waxaan marka si weyn ugu mahad celinaynaa runtii
xafladan oo intaasoo dhan huwan oo bilowganagii ah oo soo dhaweyntii ah oo aan filayno waxyaabo yaryar oo muddadii hadda ergadu joogtay la isweydiinayay mar haddaan furanay xafladaan isugu nimid halkaa inay ku dhammaan doonaan haddii aan la idmo qodobka labaad waxaan rabaa inaan si weyn ugu mahadceliyo ergadii galmudug oo meelaha kala duwan ka timid oo waqtigii loo cayimay halkaan soo gaaray 17 bay ahayd ergada halkaan fadhida iyo inta hadda xaafadaha ku maqan waqtigii loo iclaamiyey waxaa ahayd 17 bishaan 8aad waxaan aada ugu mahadcelinaynaa imaanshihiinnii aada waqtigii shirka la iclaamiyey aada timaadeen waxaan kaloo kaga mahadcelinaynaa dulqaadka iyo mas-uuliyadda aada muujiseen muddada 17 maalmood ku dhow oo aada halka joogteen oo ay ahayd in shirkii la qabto oo shirka dib u heshiisiinta uu dhammaado oo aada guryihiinni iyo carruurtiinni aada ku noqotaan dulqaadka aada muujiseen oo runtii aan is leeyahay waxay muujinaysaa arrintaas waxa aad ka qabtaan galmudug inaad dhisataan inaad ku heshiisaan inaad xaafadihii aad ka timaadeen iyo meelihii aad ka timaadeen aad u celisaan galmudug heshiisay galmudug wax dhisatay taas adinkoo u muujinaya waxaan is leeyahay arrinta ergooyinku dulqaadka oo 10 beri iyagoo aan sharqan lahayn iyagoo aan lahayn muxuu ahaa guruuca lahayn iyagoo dareensan sababta halkaan ay u yimaadeen inay tahay inay marka horena galmudug halkaan ku heshiiso marka dambena ay maamul ay ku kalsoon yihiin ka samaystaan halkan walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin anoo mar labaad iyo mar saddexaad bayna kaga mahadcelinaynaa anoo guddiga afkiisa ku hadlahaya waad la socotaan annagu waxaan doonaynaa oo keliya waxaa weeye wixii aanu halkaan u nimid oo qurux badan oo nabadgelyo ah oo madaxdii qaranku ay ka soo qayb gasho oo adinka inta idinka dhiman aad ka soo qayb gashaan bay ahayd arrimaha dib u dhac ah oo idinkaga cudurdaaranayno wax kaloo cillad iyo wax kaloo dhibaataa midna ma jiraan qolada ka maqan waxaanu ka codsanaynaa way soo gudubsadeen laysaskoodii iyagana waxaan ka filaynaa haddii alla idmo inay waqtiga ugu degdegsan yimaadaan intaas taas baan uga baxayaa inta labaad waxaa weeye shirku baa inoo furmahayaa haddii alla yidhaahdo 48 saac oo soo socota waa inoo furmi doonaa marka intaas aan isu dulqaadanno aanu sii showrno amnigii aan ka wada hadalno waxyaabihii horumar leh oo ra-iisul wasaarihii baa noo imaanaya aan kala hari lahayn hadday deka tahay hadday waddo tahay hadday aeroboor tahay maanta ra-iisul wasaarihii baa inoo imaan doona haddii alla idmo awal 40 maalmood buu joogay wax badan lamaan aan harin laakiin waxaad yeeshaan maanta cambarkii baa inii imaanaya galmudugey waad ogtihiin meesha aad tihiin inaynaa waddo lahayn inaynaa aeroboor lahayn inaynaa dekan lahayn meeshaad u aadaanna waa ogtihiin waxaan codsanaynaa wixii annagana la kugu yeerana inaan qabsano wixii aan dowladda ka rabnayna inaanu kala harna haddii alla idmo